laba wiil oo Soomaali ah oo walaalo ah oo xaafidul Quraan ah oo xalay salaada taraawiixda ka tujiyay masaajidka At-Taqwa oo ku yaala magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ayaa waxa dilay sida wararka qaar ay sheegayaan walaalkood ka weyn oo 20 jir ah kaasi oo markii dambe caawa booliska toogtay si aan faahfaahin arrimahaasi oo dhan aan uga helno waxa qadka telefoonka aan kula xiriiray imaamka masjidka At-Taqwa Sheikh Mustafa soo dhawo marka hore marka xiga xalay sida wax u dhaceen dadka waan dhawahay xalay waxay wax u dhaceen wiilashu ninkan labadan habeenee u dambeysay waa imanayay masjidku imanayay maanan ogeyn annagu kamaana warqabin laakiin waxaa laga sheegayay inuu dad layn doono oo maaragtay khaasatan masjidkan inuu dad layn doono xogaad waxaa kale oo laga sheegay inuu yidhi diintan fake weeye wadaadaduna been bay sheegahayaan oo been bay dadku u sheegaan hadalla saasaaka liiga sheegay maanan ogeyn annagu inuu nin cugdadaysan yahay oo cugdadii ay ku jirto oo diinta islaamka oo cadhaysan ma aanan ogeyn inuu yahay laakiin arrimaha saaka ay soo gaadheen kolkii wiilasha labadan yararkee walaalihii oo xufaad oo dadkii masaajidda tukinayay ah markii la soo qaaday wiilkii soo qaaday wuxuu yidhi markii hore waan sugi jiray ilaahay qadarkiisa xali kolkaan albaabka dhigay wiilasha midna 16 jir buu ahaa waxaan marayka kalena 14 jir miya ayay ahaayeen rag oo adeero waaweyn iska ahaayeen oo maraykan 14 jir ilmaha ay maraykan waa qof weyn camal oo kale marka saadan albaabkii u dhigay albaabkii kolkaan saa u dhigay waan iska dhaaqay wiilashu markay garaacayaan ilaa meel albaabka agtiisa ku gabanayay wuxuu soo kacay ninka Cabdiwaahid la yiraahdo oo aad u necbaa baa la yiri qaariga ee furaada guudan qaba ee aad maaragtay quraankiisa aad maanta meel badan la soo galiyay ayuu madaxa kaga bilaabay wiilashuna markaa saddex bay ahaayeen Cabdiwaahid iyo Cabdiraxmaan iyo nin Zubayr la yiraahdo oo yaro isagu 10 iyo wax jira 10 meelaha jira markuu madaxa kaga bilaabay xabadii marka wax badan buu ku waday wiilka maskaxdiisa wiilka darbiga ay ku firidhay xabadaha intoodii badna wiilkaas ku dhameeyay walaalkii Cabdiraxmaan buu kula soo jeedsaday isagana madaxu kaga dhuftay dhowraaloos oo saadhay madaxu kaga dhuftay markaasuu kii yaraa albaabka xoog u garaacay furay asaguna halkaa wuxuu galay uu cabaysanayay albaabkii in la furana wuu rabay reerkana uu gumaado wiilasha aabahoodii hooyadood hore bay u dhinteen waxaa gacanta ku haysay eedadood xamdi gabadh la yidhaahdo eedadooda gacanta ku haysay oo wax bartay oo aad iyo aad quraanka ugula dadaali jirtay aad iyo aad juhdi aad iyo aad u weyn ku bixisay aad ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu gabadha sabir siiyo aad bay gabadhu isku dardarsantay baa hadda laygu leeyahay waxaana waa qadar ilaahay marka dadku ku siiyay kii kalena ku siiyay yarkii albaabka fag laga siiyay asagoo qoray albaabkiina ka xidheen horti gurigii laga xidhay asagoo xaggu isaga dhaqaaqay marka wiilashii meeshii bay ku dhinteen intaas xalay dhacday waayahay marka wiilkii kale ee dhibka geystay isagana waxa la soo warinayaa in caawa ay booliska dileen bal arintaasi iyaduna faahfaahin naga sii anu maba ana ogeyn kolkii hore inuu gurigayga agtiisuba deganaaba gurigayga dhankiisa ah ayuu deganaa marka wada yar baa noo dhaxaysa wadadii bay maanta isaga naftiisu malag baa waday Soomaalidu meelihii oo dhan ay maqaaxiyadii suuqiya waa la wada xidho ninkii wax baan dili oo Soomaalidan layn buu yiri oo yaa la isgaarsiiyay arrinta markii la isgaarsiiyay Soomaalidu meelihii furaa oo dhan inta badan way xidheen maqaaxiyi waa la xidhay maqaaxiyi kolkii hore way xidhnaayeen laakiin suuqyadii yaa la xidhay markii suuqyadii la xidhay meeluu socday maaragtay wadooyinka ah islaan eedadii abuu gurigeedii ag maray iyadoo taagan buu arkay xabaduu ku garaacay ilaahay baa garab mariyay
markaasuu dibeetana casarradii markay tahay casarkii markay tahay baa nimankii booliiska ahaa heleen nimanka way suud gareeyeen isaguna wuu ku riday ma aqaan inuu iyo wax ka yeelay oo wax ka dhaawacay ma garanayo laakiin madaxa laga toogto oo ninkii oo officerka ah baa toogtay oo madaxa ka toogtay marka xabadaas ku dhacday markii hore dhaawac baa lagu qaaday marka waxaan u maray isbitaalku ku dhintaa filaya intaas dhacday marka goorme ayaa la qorsheenayaa in wiilashii xal geeriyooday iyo kan caawa geeriyood la aasayo weekend baa soo galay weekendu markuu dhamaado isniinta baa la ogaan goortii oo maaragtay ay soo fasaxaan wiilasha yararkan inta badan waxaa laga yaabaa in maaragtay waxay wala qalqali oo wax in lagu sameeyo waa suurtagal laakiin goortay fasaxaan baa la arkay wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in wiilka dhibka geystay oo 20 jirka ahaa oo maanta booliska ay toogteen in dhanka maskaxda lagu jiray marka arintaasi maxaa ka jira ardaygu aan jiro meeshan masjidka uu arday ka ahaa oo muddo dheer arday ka ahaa quraanka inuu dhameeyeen waan u malay marka tabacdi baa in korkii hooyadii dhimatay ee masaa'ib ku dhacday marka adigu waa meel dhibka uu ka dhacay marka hooyadii hooyadii dhimatay ka bacdi ayay masaa'ibtu ku dhacday marka wuxuu noqday uu shaqaysan jiray laakiin waxaan u malay inuu daroogada isticmaali jiray saas aan filayaa hooyadiis sidoo kale markay dhimatay aad bay u qabsatay magaalada aad degan tihiin dhacdadaasi dad badanna way ka naxeen qaab ceenkee ay u dhimatay hooyadiis walaal deeqo arinta inaan ka gaabsadaan jeclahay waa arin aad maaragtay nafta ay way xsanayso marka aad waxaan u jeclahay deeqo inaan arinta ka gaabsado way ugu dambeyntii marka xaaladda magaalada Kansas City ee gobolka Missouri Soomaalida ku nool waa sidii hadda والله مرق وين بالجتاد يلا ويروا ولا ويلا يركض اللي يروا حفاظ أو قرآن إلى واحد قد لي عن كسبنين دمنا عن سماينين مساجد كي مدة هرتاجنا تكينها هي قراءة هذه يلوب بغي يركعه وليش دل كودو مل أدي أو مدتك كجالي لكن إسلام كان عندنا دكتور وحكي واحد لا ولا الكشك ولا القضاء marka arintaasi aad iyo aad bay anaga amarat community ahaan aad bay noo dhibtay aad iyo aad bay noo dhibtay laakiin qadarkii Ilaahay baa in lagu sabraa waajib ah waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Sheekh Mustafa oo ah imaamka masjidka At-Taqwa ee magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka oo dhacday igu waramayay Sheekh Mustafa aad baad maasan tahay aad baad maasan tahay